haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf. waxaa soo baxaya walaac ku saabsan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya inay mar kale hareeyaan eedan la mid ah kuwii hareeyay doorashooyinkii ka horreeyay ee 4 sano ka hor iyo 8 sano ka hor ka dhacay wadanka eedahaasi oo ahaa musuqmaasuq codibsasho iyo cabsi gelin tusaale ahaan doorashadii u dambeysay ee 2016-2017 hanti dhowrihii xilligaasi waxa uu VOA u sheegay in lacaga badan lagu bixiyay lacagahaasi oo cod lagu iibsanayay Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu xilligaasi sheegay in lagu kala iibsanayay codadka $5,000 ilaa $30,000 waa doorashadii dhacday 2016-2017 Dr. Nuur Faarax Jimcaale oo haatan ah cilmi baare madax bannaan waxa uu qabaa walaac la mid ah kii uu sheegay 4 sano ka hor horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya waxa kale oo meesha yaala waxa weeye oo lagu aad loogu tartamo waxa weeye in gudoomiyaha baarlamaanka la soo saaro in ra'iisul wasaare la soo saaro in madaxweyne la soo saaro marka maxay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay siyaasadii dalka lagu maamulayay waxa doorka ugu weyn qaadanaya wadanka saddexda isteega ugu sareeya mid yeesha ama laba yeesha inkastoo ay hay'ado kala duwan iyo khubaro madax bannaan qabaan fikradda Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in lacagaha dibaddu ay yihiin kuwa codka ugu badan lagu kala iibsado haddana ilaa haatan lama hayo cadeymo biyo kama dhibcaan ah oo ku saabsan lacagahaasi oo la isdhaafsanayo aynu ka hadalna marka doorashada gudaha tii 2016-2017 horaanteedii waynu aragnay tanna hadda waynu u jeednaa maxaa musuqmaasuq dhici kara marka tan la eego markaad ka qiyaas qaadato qaabka doorashada ay ku dhici doonto waxa la yiri ergooyinka waxa soo xulay odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo iyo maxaan ku yiraahdaa maamul goboleedyada intaas oo iskaashanaya 101 ergo ayaa soo dooranaya xildhibaankii dalka hadal arrintan iyo wixii cabsiga kugu jira adiga dareenkaaga arrinta cabsida ugu weyn ee ugu jirta waxa weeye schedule sax in la keen waayo in maxaa la yiraahdaa transparency waxa afka qala lagu yiraahdo ama daahfurnaan ee meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartami weyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo haddii gudiyada doorashooyinku ay yiraahdaan si cad oo muraayad ah lagu kala baxo oo muraayad hal isku doorto oo gacantaaka la isku doorto waxa weeye halku soo dhawaanaya siyaasadda marka Soomaaliya waxa ka maqan hoos u daadejintii in heer maamul goboleed loo daadajiyo wax walba in madaxa ay ka raran yihiin oo madaxda dawladda sare ay ku xiran yihiin dib ayaa taagan daahfurnaantii waa maqan isla xisaabtankiina waa maqan yahay daahfurnaanta aan sheegayana waxa weeye in schedule sax la qoro in xubnaha tartamaya magacyadooda la qoro in shuruudaha la qoro in meesha lacagta ay ku dhacayso tartanka qofka tartamaha lacagta laga shubayaa meesha ku dhacayso iyo sida ay ku baxayso iyo sida lagu celin karo inay caddahay guddiga xalinta khilaafaadka waa in processkiisu cad yahay yaa u ah marjac yaa u ah guddiga khilaafaadka qaabkee ku kala saaraya qoraal waadix oo wax lagu kala saari karaa meesha waa inuu jiro hadduuna jirin waxay noqonaysaa gacan mugdi ah in wax lagu kala saaro halkaasna ay daahfurnaantii ka maqnaato isla xisaabtankana waxa weeye guddiga doorashooyinka yaa la xisaabtamaya yay u yihiin accountable ayaga laftooda yay u yihiin shuruucda ay wax ku kala saarayaan shuruuc qoran oo websaydyada Soomaalida iyo idaacadaha iyo miidiyaha u daahfuran ma yihiin haddii aan isla xisaabtan sax una jirin oo yaa la xisaabtamaya guddigan doorashooyinka yaa la xisaabtamaya guddiga khilaafaadka haddii aan tartan furan oo daahfuran uusan dhicin nin tooxsan ugu dhacaya fikrad la mid ah tan Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa qaba Maxamuud Axmed Maxamuud Kulalihi oo kursigiisa uu kamid ahaa 6 kursi oo muran balaaran uu ka dhashay doorashadii dhacday 4 sano ka hor Kulalihi waxa uu waayay doorashadaasi waxaana uu isagu ku dooday inuu diiday inuu laaluus bixiyo wallahi waa igu billahi waa igu tallahi kitaab magacantan saadamaya 16 sano aan xildhibaanka ahaa $1 oo laaluus ma bixin
intaan meesha joogo oo madaxweyneyaal isu sharaxayeenna oo lacagtay bixinayeenna $1 kama qaadan. doorashadii u dambeysay 2016 adu wax ma bixin sidaad ii sheegtay laakiin ma lagu weydiistay oo ma lagu yiri hadaad rabto kursigan lacag keen ma lagu yiri ma lagu hadlay su'aal weydiiyay ana liigu dheelay oday oo intaas xildhibaan ahayd weligaa shilin kaama adkiishaan kaama cadinay hadaad jeebka ka hado doorashadan hadda soo socota ma kula tahay inay lacag bixin iyo musuqmaasuq inay ka madax banaanaanayso waa kasii daranta waxaa waaye animosity waxaa jira oo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka waxaa jirta animosity oo siyaasadihii nimankii madaxda noqday iyo niman asoo raba inay madax noqdaan ya waxaa ku jira awal waxay ahayd keliya ninkaana xildhibaanka raadinaya kursiga waxaa ku jira wadamadii carabta ahayd marka waa kasii xoog badan tahay waana kasii daranta laakiin avantaajada ay leedahay sanadkan maxaa waaye markii hore waxay ahayd garowe hadda boosaasaa laga dhigay marka soo socota waxay noqon kartaa magaaladii in la aado laakiin doorashadan waa kasii darnaanaysa waana kasii xumaanaysa maamul goboleedyadii oo kuleelka u taabtay dadkii madaxda ahaa oo kuleelka taabtay nin walba kursigii waxaa la ogyahay shil iyo caradihii kulligaa ku wadi jira xildhibaan cabdi maxamuud maxamed cabdiyare oo isagu ku guuleystay kursigii xildhibaan maxamuud kulalihi waxa uu ii sheegay in kursigaasi lagu kala qaaday si cadaalad ah oo aan musuqmaasuq ku lahayn kursiga horta jeebka lagama qaadin kursigani keligiis igulama u tartamaynin waxa igula tartamayey aniga iyo 3 nin oo kale oo isagu kamid ahaa waxa lacag la yidhaahdo oo hadda aan ku leeyahay kursigaa waa layga adkaaday ma aanay jirin oo anagu laftiyagu lacag ma aanan bixinin dabcan hadduu u yaqaano laaluushka ama lacag bixinta facility-ga kursiga markaad doonayso kugu baxaya lacag way ku baxaysaa laakiin wax kaasho oo aan lacag oo aan kala qaadanay ma aanay jirin kursiga markaad doonayso dadkaa ka doonayso waad shukaansanaysaa waa la kulmaysaa qadooyin baad ballaminaysaa xafladaad ballaminaysaa meedii saxaafad baa ballaminaysaa lacag baa ku baxaya qofka aad u baahan tahay waad la qadaynaysaa waa la cashaynaysaa waa la quraacanaysaa waa la kafeeynaysaa dabcan waxaasoo dhan bilaash maahan waa lacag marka kursiga lacag way ku baxdaa siyaabo kala duwan bayna ugu baxdaa laakiin macnaheedu ma ahan inkaas la kala qaadanayay xilligaa ay ahayd hadde saaxiibkii haddaanu dee taas uu ka wado laaluush baa la kala qaatay taasi laaluush maahan baan aan malaynayaa ama filaya ama saasay tahay marka saasaan uga jawaabayaa ma ahan wax lacaga inaan bixinay ma kula tahay doorashada soo socda inay musuqmaasuq xor ka noqon doonto adigu ma u taaganta kursigaada aad baad u mahadsan tahay haddaan ku noqdo tii hore horta si dib ugu noqdo aniga kursigeygi waxaan aaminsanahay inuu ahaa kursi si feer ah u dhacay oo xor iyo xalaala u dhacay waxaa ku cadaynaya waa laysoo celiyey oo si corruptional laysoo celiyey oo khaldan haddii laysoo celiyeyna ergadii shalay ii odaysay iyo kuwo aan ergadeydii ahayn ayaa si mutadawiciin ah oo isxilqaana uga yimid gobollo kala duwan ilaa boosaaso qardho gaalkacyo iyo meelo kale si ay kursigii ay mar labaad aniga ay igu doortaan ma fasmati garayn ma kharaj garayn umaanan yeeran laakiin si mutadawacnimaada u yimaadeen sidaasayna kursigii mar labaad ay igu soo doorteen si fuul ah oo 100% ah marka taas horta taas weeye tan kale waan kaale su-aashaada haddaan usoo noqdo waan tartamayaa ahaa waana ku qanacsanahay dadkii shalay isoo doortay inay mar labaad isoo dooranayaanna waan ku qanacsanahay waan filayaa waana jeclahay waana rajaynayaa inay si feera u dhacdo intaan ka warhayo anigu doorashadu si feeray puntland uga dhacday intaan ka warhayo puntland si feeray uga dhacday waana ku kalsoonahay haddana inay si feera ugu dhacayso maxamuud kulalihi waxa uu xildhibaan soo ahaa muddo 16 sano ah intii uusan seegin doorashadii la soo dhaafay xilligana waxa uu tartamayaa inuu mar kale soo ceshto kursigiisa aniga musharaxan ah xag ilaahay ka qoranta haddii ilaahay u qadarana waa helaya haddii keeda ay samaheenna kiisa ay samaheenna ma helaya laakiin kursi ilaaliskaasaan ku jira oo 3
karbuuno saddex qaadkaan ku hayo. doorashadii 2012 waxaa soo xulayay 135 xubnood oo kamid ah odayaasha dhaqanka halka tii dhacday 4 sano ka horna ay odayaasha dhaqanku soo xuleen ergooyinkii doortay xildhibaanada. doorashadan waxay u muuqataa in mas'uuliyadaas la ballaariyay waxaana odayaasha la soo xulaya ergooyinka bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada oo iska kaashanaya soo xulistaasi waxaana la doonayaa in xildhibaan kasta ay u codeeyaan 101 ergo. xildhibaan Cabdiweli Maxamed Qanyare waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka xilligan uu waqtigiisu sii dhamaanayo waxa uu aaminsan yahay in eedaha musuqmaasuqa la xiriira ay inta badan ka yimaadaan dadka xilka looga adkaado. adduunka horta meel kastoo doorasho ka dhacdo mar kasta waxaa jira qolo faraha taagtaagta oo doorashadaas wax uu ka sheegta amba ku sheegta lacagaha kambaniya baxshay amba dowladaha baxshay waana marka iyagaas laga raayo amba qoomkii laga raayaa markasta waxay qolyaha raayay ku naqdiyaan in doorashadaas aysan xalaal ahayn. afrikana kuma sii jirto, soomaaliyana kuma sii jirto. soomaaliya qolo kastoo laga raayo waxay jiraan war doorashadii horoo dhacday iyo dadkii horeo soo galay ay ku soo galeen lacago banaanka laga keenay iyo kuwa shaksiyaad baxsheen iyo musuq maasuq iyo waxaas waa la yidhaha. laakiin aniga ka shaksi ahaan wax aan arkay oo musuq maasuqa ma jiraan. marka eedahaasoo dhan laga yimaado aduma waxaad aaminsan tahay doorashadii dhacday inay xaq ku dhacday tan soo socotana xaq ku dhici doonto? for example aniga intaan ogahay waxaan kasoo galaa galmudug aan kasoo galaa. galmudug inta badi dadka kasoo galay qaylo badan ma qabin laakiin kuraas xoogaa laga qaylinayay waa jirtaa oo accusationkaas uu jiray. laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa sheegi kara electoralkii vote garaynaysay iyo shaksiyaadka tartama ayaa sheegi kara. aniga waxba kama sheegi kara laakiin aniga kursiga aniga aan for example aan kusoo baxay wax musuq maasuqa kama dhicin landslide aan ku raayay. Sahre Maxamed Axmed waxay ka mid ahayd guddigii xalinta khilaafaadka ee doorashadii dhacday 4 sano ka hor. Sahre Maxamed Axmed waxay xilligan ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka Somali Women Development Center. waxay iga warantay caqabadihii ay la kulmeen guddiga xalinta khilaafaadka. marka horeysa anigu waxaan noqday waa iskala qaybinay saddex meelaha la isku kala qoray. marka anigu waxaan ahay qofka urjoogaha uu ahaa ama gudoomiyaha uu ahaa galmudug hadaan kaaga sheekay cilado waaweyn ay jiro waxay ahaayeen doorasho ma jirin waxaa jirtay wax la yiraahdo adiga qofka in la kala garaysto oo la kala doorto dad marka diyaar ahay ahaayeen oo diyaar u ahaa lacagtii haystay ergadii haystay odagii haystay dad waxay ahaayeen tartanka iska galaayo oo ilaahay watay maxadarada ergadooda xataa loo diiday inay keensadaan. marka taasi order difference weyn ay ahayd. haddana cadaalad darrada dhacday waxay ahayd dadka markaas awood isbidaayo isla tartamayeen waxay ahaayeen waxaa lagu kala reebaya waqtiga xataa salaada asoo qof ku jiro in qofka la yiraahdo doorashadaada gal ay gasho qof maxaa meedka oo yaala doorashadaada gal la yiraahdo marka qaarkood inaan laga gaarin xataa in qofka qoraal ay qortay tira hebel aan rabaa gacanta taaga la dhahayo galabta qoraxday dhacdo waxyaalo badan waxaa dhacay aan macquul ahayn. kiisaska ugu badan ee dacwada la idin soo gudbiyay yay ka imanayeen maxay ahaayeen? kiisasku way kala sidaan sheego waaye 3 meel ay ka imaanayeen oo dhaqameed qol lagu soo xiray oo la yiri saxiixa ma u baahnaba sida ay ku galeen ma aqaani uu jiro soo dacwoonayo dhahayo hotelkan jooga leema ogol inaan ka baxo. waxa kaloo jira xildhibaan asoo taagan ergadana loo haysto maxadarada ninka meelkaas madaxda ka ku haysto ay soo ergadiisa iyo awood isku arkaan aysan jirin oo diyaaradda iskala soo degaya xildhibaanka iyo ergadiisa taasna waa jirtay. ergo waxaa jirta ayagoo diyaar oo yimid oo la keenay haddana kuwa kala kor keenayay marka xuquuqda saasa la isugu kortumanay. waa gartay maxaad ku xallin jirteen marka seed u xallin jirteen? wallahi anaga hadday marka wax naga maqlaa ma jirin laakiin markaan isu soo noqono nimiday waxaan soo saarnay intii aan islahayn intaas waxaa jiro UNDP da waxaa markaas fangareynaysay doorashada waxay xaq ahayd marka in guddiga xilaafaadka account aan qornay oo UNDP da lacagta in lagu shubo 71 xildhibaana aan u maleynaa inay ahayd wixii soo dacwooday awood baan u helin xataa aan u maleynaa inaan dadka waxnoon dhahno adsaana looga qaatay raalli ah markii maxkamad markaas ma jirin qaar maxkamadeed u ordeen waxaas oo wax kama jirin marka say ku tagtay waa tu arjaab leh ahayd taas marka taasaan rabnaa inaan ka hortagno hadda dii ilaahay raalli ka noqdo aysan dhicin nin ergada horta cidiisa ma yahay qabiilkiisa ma yahay in la arko civil society ay helaan ka hortag iyo ka daba tagbo marka horena ay screening ku sameeyaan odayga la socdaan qabiilka ninka uu rabo ma yahay dadweynaha dadka iraan ma yihiin meeshan shacabka la rabo marka in loo shaqeeyo si aan ugu gudubno bari qof iyo codkiisa oo heli karo shacabka inuu saf galo qofka raban oo doorto
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu toddobaadkii hore magacaabay gudiyada doorashada federaalka oo ka kooban 25 xubnood iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo ka kooban 21 xubnood. galka baaristu waxa uu la xiriiray xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya si aan uga wareysano doorashada soo socota iyo walaaca laga qabo. hase yeeshee ilaa haatan xafiisku kama soo jawaabin codsiga aynu u gudbinay.